iyo dadka ku nool jamhuuriyadda Djibouti waxaan leeyahay in ilaahay samir iyo iibaan uu ka siiyo inuu ilaahay cadaab alqabriga ka badbaadiyo in ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu jannadii firdawsana ka waraabiyo ayaan maaragtay halkan ugu soo jeedinayaa waxaan ka salaamayaa ummadda reer Djibouti baan halkan ka salaamayaa meel kastay joogaan ummadda Soomaaliyeed dhammaantoodna waan ka salaamayaa geeska Afrika ku wada nool Ethiopia iyo Soomaaliya Somaliland iyo waxaan kaloona halkan ka salaamayaa ummadda adduunyada ku nool meel kastay ku nool yihiin gees kastay joogaan waa aniga ay soo dhacaya waxaan la qaybsanayaa in ummadda matqaana ku nool adduunyada fanaanada qaaliga ee la dayacay fanaanada gudubta laga galay fanaanada wixii xaq u lahayd loo diiday ee fanaaniin kale oo ka yimid dibadda laga horumariyay waxaana waxa sabab u ah waa taliska mucangaga iyo islaanta madax u xidman yihiin yaa sababta u leh kullu nafsun daa'iqatul mawt qof walba uu dhimanaya taa waan ogsoonahay balse fanaanaday sida ay ku dhimatay wax lagu ooyo weey iyadoo ma Faadma Axmed baa ku horeysay Jalla ku horreeyay iyo fanaaniin badan oo ku nool dalkeena waxaan leenahay ilaahay cadaab alqabriga ka badbaadiyo ilaahay kitaabka quraanka midda ka siiyo maalintii la qatan yahay la qawan yahay wax badan ayay dalkeena u soo tartay laakiin maxay ka dhaxashay waxay ka dhaxashay in la yiraahdo nacaabud way diiday jilbaha inay u joogsato way diiday aniga oo qofkii ugu dambeeyay in la hadlay ahaa waxay igu tidhi ha aamusin adduunka intaad ku nooshahay ha aamusin cadaalad darro lagama aamuso waxaan leenahay waan halkan ka sheegayaa oon si sare iyo si hoosba u sheegayaa waxa weeyin qofkuna mar buu dhashaa marna wuu dhintaa qofku bilaadanki marna wuu dhashaa marna wuu dhintaa laakiin daranyada yaa u daran dadka intay halkaas soo fadhiistaan leh xisbiga ammaanaya iyo madaxweynaha gacan ku dhiglaha iyo islaantiisa madaxan waxay ugu dhiman yihiin ayaan daradana qabsatay baa ah caasha boqorrey noo badisay horarkaay waa horar lug ilaahay ka gooyo waa horar moogta ciilka maanta ay ku jiraan dadkeennu waxaan la yaabanahay hooyooyinka sharafta leh iyo abooyinka sharafta leh ee soo fadhiisanaya halkaa ee ammaanaya waa ninka aad aragteen ee caqligu ka suulay iyo islaamta cadownimo dhaaftay ee dadkeenna saa u galaysa halkaa intay soo fadhiistaan leh wanaag baan haynaa iyo barwaaqaan haynaa iyo bashbash baan haynaa maanta waa if barina waa aakhiro aniga waxaan halkan ummadeenna uga dirayaa tacsidaayii waa tacsi innaga noo wada taalla qof walbana halkaasuu mari doonaa aniga nila hadlayay waan mari doonaa iyagu saciday la ballameen iyagaa garan doona waxa weeyin aniga gabadha ay la dhalatay ee maanta dhimatay ilaahay u naxariistee dhiiggaygu xinjiruu samaynayay 8 sanay lahayd war jarmalka iyo dhulka ayaa maaragtay laasar lagu daweeyaa ma ogtahay iyagu soo kuwa madax qufac iyo xanuun dhulka lagu yimaada iyo intay hoosta ku wataan inta hoosta ay ku wataan dalka aan u dhalan taasaad dugsanaysaan dadkeennow taasaad dugsanaysaan waan lagu kala qaybiyey sheekada maanta fuaad ku haysata xabsiga ku haysata iyo walaashayda maanta dhimatay ilaahay naxariistii janna ha siiye waa wax qura
iyo deeqa duurcis oo lagu haysto gardarro dadka difaacayaan la hadlayaa odayadaan la hadlayaa dumarkaan la hadlayaa waxaan leeyahay xishoodaan leeyahay waxaan leeyahay qabrigana difaacina waa cadow oo ciduu ka naxayaa ma jirto islaantayna ciday ka naxaysaa ma jirto madaxu waxay ugu dhiman yihiin ma ogtahay waxaan ma jeclayn inaan hadlo laakiin waxa weeyiin maanta waa berina waa aakhiro bilfadlakum waxsaanakum ila dareema 3 cisho ka hor ninkii afkayga kula hadlay baan ahay aadna weydiisoo salaamaysa ifi aakhiraba laakiin waxaan sheegayaa oo ku celinayaa maahmaah baa jirta afkeenna animaanan kuu rarin yaanu kuu furin dadkeennoo dhan hadday tahay noorka siidka westiga meel ay doonaan ha joogaan waxaan leeyahay heeryadan aan iska ridno heeryadani aan iska ridno ninka maanta halkaa intuu soo fadhiistay yidhaaha bashbash baan haynaa barwaaqaan haynaa jaalle silic buu ku dhintay faaduma axmed silic bay ku dhimatay inkastoo fanaaniin badanna silic ay ku dhinteen tiibaa maanta na hor joogtaa tiibaa maanta qoyan waa taa xabiiba cabdilaahi waa beri muuse ku dhimatay halkaa silic bay u dhimatay ilaahay nafta i geliyey baan ku dhaartay iyagaa ugu talagalay inay dilaan iyagaa ugu talagalay sababtoo ah waxa weeye qof dhiiggii xinjiro samaynaya xinjiro uu samaynayo la yidhi ma bixi kartid dadka qaarna la siiyey baasaboor diblomaad uma dhalinta halkan idinkaa dilay dadkeennow gabadhaa idinkaa dilay layna sacabkaad u tunteen gaalkaa gaalku dhalay iyo naagtaa madax wax uga dham yihiin waxaan idin ugeysinayaa iyadii ilaahay lahaa baa qaatay idinku isxoreeya fu'aad baa yidhi deeqaa tidhi annagaa le isxoreeya haddaad isxoroyn weydiin idinkaa idin taallaa insha allahu tacaala waan soo socdaa waana iman doonaa baddu buurta ha jiidho dulmi ma yeelayno cadaalad darri ma yeelayno sinaan baan rabnaa cadaalad baan rabnaa walaalnimaan rabnaa iskudubnimaan rabnaa ha naga tagaan dadkan gacan ku dhiglayaasha ee dilay maanta aniga tayay la dhalatay adduunka taanu jeclaa yay dileen anoo saa u arkayay dileen iyagaa dilay wad uma iman baan leeyahay ana taabaan aaminsanahay لأنه وحوين مركي قفك اللي لددالو دي وحلقة قبون كوي وحالا إلهي باقاتي ولا شيء يقاد لي والله وبالله وطالله يقاد لي يقارب بدن يقاد لي فؤادني إني الدلان بين ربان هلكا هلقا سيوضو واني السلامية وعدالة ديد وعدالة أهيلي وحق دون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.